kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa khamiis, taariikhduna waa 30 bisha 7 2026. wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa faahfaahinta ay bixiyeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan dagaalkii xalay ilaa saakay ka dhacay iyaga iyo Mareykanka u dhaxeeyay bariga dhexe ka dhacay. haddaba saakay waxaynu soo gudbinay taqriirka ama warbixinta Mareykanka. ciidamada taliska dhexe ee Mareykanka ee CENTCOM inay dagaalka soo gabagabeeyeen meelaha ay weerareen waxa ay sameeyeen. xilligaas waxaan idiin sheegay inuusan soo bixin warka laga sugayo dhanka Iiraan oo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan warkooda. haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war kooban iyaguna soo saaray duhurkii maanta. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen Kuwait saakay. waxay soo kale sheegeen inay garaaceen saldhigga Kuwait ku yaala ee la yiraahdo Ali Al Salim, halkaas oo markaa ay ku sugnaayeen ciidamo Mareykan ah. waxay soo kale sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay garaaceen saldhig isagana ku yaalay dalka Urdun oo ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykanka. dhanka kale waxay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay soo rideen diyaarad Dronesa taasoo dul maraysay koonfurta galbeed ee waddankaas. ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen waxaynu soo ridnay diyaaradaas oo uu cadowgu lahaa taasoo dul maraysay magaalada la yiraahdo Bandar Imaam Khomeini taasoo ku taala dhanka koonfurta galbeed ee waddanka. diyaaradaasna waxaa la soo riday saakay ayaa la soo riday. waaye marka diyaaradda faahfaahin badan lagama bixinin. madiinatu Bandar Khomeini ayaa la yiraahdaa, koonfur galbeed waddankaas ayay ku taallaa meesha magaalada diyaaradda lagu soo riday. waxaana la soo riday aroortii saakay. waxay ka mid ahay diyaaradaasu kuwii Mareykanka ay ku weerarayeen saakay Iiraan. sidaa ogtiin xalay Mareykanku wuxuu dib u bilaabay weeraradii uu ku qaadayay Iiraan 7 in laga joogo meelahaas oo uu hakiyay. haddana xalay ayay bilaabeen. marka iyaguna waxay bilaabeen inay iyaguna garaacaan saldhigyada Mareykanka. laakiin tafaasiil laga qoray dad khubaro ah oo dhanka militariga ah oo la weydiiyey weeraradan maxay kaga duwan yihiin weeraradii 7 ka hor ay labada dhinac isku qaadayeen. waxaa la isku raacsan yahay weeraradanu weeraro waaweyn ma aha weli. waa waxyaabo nin walba meel caadi iska ah, waxyaaba waa la duqeey waxaas waaye. laakiin bahashu weli ma dhanaankii weli lama gaarin. jugta culus weli layskuma bilaabin. Mareykanku waa soo duulaa xeebaha agtooda meelaha uu wax ku tuturiyaya waruu soo saaraa. waa dhammaystirnay weerarka guul oo noogu dhammaaday ah. Trump sheekadaas wadaa. Iiraan iyaduna dhowr gantaale waxay ku ridaa saldhigyadiisa gobolka, iyaduna waray soo saartaa. sheekadan dhan marka waxay leeyihiin waa wax dagaal ma aha. waxaan dagaalka runta ah Trump ha bilaabay dheh. Trump inta baxo Tahraan dukum daakum ha ka dhigo meel walba oo uu ku hanjabi jiray maaragtay meelaha tareenada, meelaha buundooyinka ha burburiya dheh. waa kaas dagaal markaasuu mid culus yahay. Iiraanna markaasi iyaduna waxa haysa firdhinaysaa, cid hooyanaysa ma jirto. xataa waxay leeyihiin khubaradu Israa'iil xataa markaa meel ku hooyata male. waxba la iskuma reebanayo, waa la isbaabiinaya. marka inta ka horeysa waxay yiraahdeen aga juglayn camal wax ah la wax weyn oo hadda Mareykan uu sameeyo ma jiraan ileen. aan aragnay dheheen habeenada soo socda hadduu ka cusleeyo weerarka, hadduu weerarka ballaariyo siduu mar walba ku hanjabo aan aragno. marka
hawshu marka taqriirka iyo sida waxa laga yiri iyo weerarkii ugu dambeeyay intaasaan kaga gudbaynaa. haddaba sheeko cusuba marka timidoo cajiib ah. shalay waxaa la weeraray dekad Mediterranean-ka xaggeeda ku taala oo Masar ay leedahay. maraakiib Mareykanku leeyahay oo kuwa gaaska iyo waxa kan waaweyn oo shirkado Mareykan leeyihiin ku xirnaa. laba ka mid ah jugta laga geliyay. waa isla ogeen intaas oo dhan, laakiin waxaan raadinaynay war waxaan yaa ka dambeeyay. dad badan oo asxaabtayda wax badan ay soo qoreen. qaar waxay yiraahdeen Israa'iil aan u maleynaynaa, qaar waxay yiraahdeen lama yaqaan oo adduunka oo dhan saas u ahaa, laakiin sababtoo ah cid sheegatay ma jirin. wixii inay la weeraray dekadii daroon lagu weeraray maraakiibtii gubanayso waa la hayaa. yaa weeraray marka daroonkan yaa leh waxa leh waa la sheegi waayay. marka masaaridii waxay yiraahdeen baaritaan dheer oo macnaha baaritaan qoto dheer aan samaynay yiraahdeen. baaritaan oo qoto dheer aan samaynay. marka maxaa samayseen? waxaa samaynay leeyihiin inaanu ogaanay ciddii ka dambaysay sheekadan. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay mas-uuliyiin masaari ah ayaa maanta si rasmi ah waxay u sheegeen inay Iiraan mas-uul ka ahayd weerarkii lagu soo qaaday shalay dekadooda la yiraahdo Damyaat. haddaba warkan waxay u sheegeen mas-uuliyiinta masaarida joornaalka la yiraahdo Wall Street Journal ee Mareykanka laga leeyahay. mas-uuliyiinta masaarida oo joornaalka la hadlayay waxay yiraahdeen in markaa ay hayaan xogta ku saabsan in Iiraan ay mas-uul ka ahayd weerarkii shalay lagu qaaday dekada la yiraahdo Damyaat. waxayna ku tilmaameen weerarkaasi masaarida inuu yahay isku day Iiraan ay ku ballaarinayso dagaalka oo jiho walba ay gaarsiinayso. mawjada dagaalka waa la ballaarinayaa, jiho kasto ayaa la gaarsiinayaa, saasay ka wadaa Iiraan ilay. marka warka hadda dhow soo baxay Iiraan weli kama jawaabin. marka Iiraan way ka soo jawaabi doontaa haddaysan iyadu waxa kan shaqo ku lahayn oo laga been abuurayo. waxay dhihi doontaa anagu waxaas shaqo kuma leh. marka warka hadda ayaa waxaa qoraya Wall Street Journal, joornaalka Mareykanka oo mas-uuliyiinta masaarida soo xiganay. laakiin mas-uuliyiinta si rasmi ah magacyadooda iyo waxay looma sheegin, laakiin joornaalku wuxuu leeyahay mas-uuliyiin masaariya ayaa ii xaqiijiyay in Masar ay ogaatay in Iiraan ay ka dambaysay weerarkii shalay macalinka weyn maraakiibtiisa nagta looga saaray dekada iyagoo ku sugan. marka arrintan xataa Trump uu ka hadlay saaki ilaa xalay waqti dambe ma ahayd uu sheegay. wuxuu yiri waan ognahay in maraakiibteena la weeraray, laakiin waxaan arki doonaa xaalku soo ku soo baxo. macnaha laftirkiisa xog ma haynin, cidda weerartay lama haynin. shakiyo badana marka weerarkaas ku gadaaman. xaalkaas marka halkaasuu joogaa. qaybta ugu dambaysa barnaamijkeena labaad waxaynu ku soo qaadanaynaa Gaza. Gaza waxay u muuqataa in caalamkii oo dhan iska iloobay. warbaahintii aad ugama hadlaan, wararka waaweyn ee adduunka ma saarna, laakiin dadkii waa la laynayaa weli. gumaadaa lagu hayaa. hadda waxaa la soo saaray maanta xasuuq cusub xalay ilaa saakay Israa'iil inay u geysatay reer Gaza. dadaan waxba galabsan 2 apartment ayay duqaysay oo dadkii jiifay ayay ku dishaarayeen xalay ilaa saakay. waxaa ku jira dad kala dilay 2 cunug oo yar oo caruur oo mid waliba sanad iyo xoogaa kaliya uu jiro. wax wara oo ay ka soo saartay sababta ay u beegsatay dadka masaakiintaana ma jirto. dadkii way iska barooranayaan, way iska ooynayaan. adduunkii oo dhan marka dadka ilaahooda iska qabaan. wax hadda oo gooniya oo dadka fiirinaya ma jiraan. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay 6 qof ayaa shahiiday ayay leedahay Al Jazeera oo ay ku jiraan 2 caruur ah
kadib markii israa'iil weeraro cusub ay ku qaaday gaza ay ku qaaday weeraro cusub. haddaba warbixintu way sii socotay. warbixin dhanka caafimaadka oo laga helay marinka gaza ayaa sheegay 6 falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur yaryar inay halkaasi ku dhinteen. waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 10 kale weeraro isxigxigay oo israa'iil ay ku qaaday koonfurta, bartamaha iyo waqooyiga marinka gaza saacadihii ugu dambeeyay xalay ilaa aroortii saaka oo khamiis ahayd ayay weerarada qaadeen. haddaba sida ay ku soo waramayso wariyaha telefishinka Al Jazeera ayaa waxay sheegtay in xalay weerar lagu qaaday deegaano kala duwan oo gaza ah. meelaha la weeraray waxaa ku jira shuqaq ama goobo apartment guryo ah oo dad rayda ay deganaayeen oo israa'iiliyiintu ay iska duqeeyeen. marka dadka iyaguna xaaladaasi isaga noolyihiin. hal maalin ma faaruqina lagu leeyahay. dhowr maalmood ee usoo nasanay dad ay ka laynay waa imaanay dad ay ka laynay. dagaalkiina waxaa lagu leeyahay uu joogsado xabad joojinaa jirta. wax xabad joojinoo jira malaha meeshaas waa arkaysa. marka xaalkaas isaguna halkaasuu marayaa. dadka falastiiniyiinta dhibaatadaasi ay ku jiraan. marka mar kale waa u duceynaynaa ilaahay dadka dhibka ha ka saaro. marka xaaladda adduunka oo dhan hadda waxay iska noqotay allow sahal iska noqotay. barnaamijkaygii labaad waa naga intaa asxaabay. fakarkiina iyo aragtidiina waa muhiim. noo soo qora like garaya oo share garaya barnaamijka inta aan mar kale kulmayno. nabadgelyo.